Jude Bellingham oo markii ugu horeysay si la yaab leh uga hadlay mustaqbalkiisa Real Madrid. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England Jude Bellingham ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay ku noolaanshaha Madrid, isagoo shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu kooxda sii joogo muddo dheer. Isagoo la hadlayay wargeyska Marca, Bellingham wuxuu yiri, Real Madrid waa kooxda igu habboon. Aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan joogo. Wuxuu intaas ku daray, waan ku faraxsanahay Madrid. Waxaana filayaa in 10 ama 15 sano ee soo socota aan xiran doono fanaanada cadaanka ah. Tan iyo markii uu ku soo biiray Real Madrid bishii June sanadii 2023, Bellingham wuxuu noqday xubin muhiim ah oo ka tirsan kooxda. Xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay wuxuu dhaliyay 19 gool horyaalka La Liga, taasoo ka caawisay Real Madrid inay ku guuleysato horyaalka. Sidoo kale wuxuu door muhiim ah ka qaatay Champions League isagoo loo magacaabay La Liga Player of the Season. Waxqabadkiisa ayaa sidoo kale u horseeday inuu kaalinta saddexaad kaga dhameysto abaalmarinta Ballon d'Or ee 2024. Bellingham wuxuu sidoo kale si weyn ugu dhex muuqday xulka qaranka England, isagoo ka qayb qaatay tartamada Euro 2020, Koobka Adduunka 2022 iyo Euro 2024. Wuxuu u saftay xulka England 42 kulan isagoo dhaliyay 6 gool. Hadalka Bellingham ayaa ah mid farxad u leh taageerayaasha Real Madrid, kuwaas oo rajeynaya inuu sii wado bandhigyada heerka sare ah ee uu ku soo bandhigay garoonka Santiago Bernabeu.